بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال وبرنامجكين لما قاعد بحيه حول معلوماتكين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلقة أما فدقي سدحية طبنات يعني وجهل لي برنامج كاس وحنكسر بحني بوقشوين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنقلينا ما أنت حولها فرها بدن النبي صلى الله عليه وسلم إيا قيب الله ميدا إيا كوا كلو كبدنبا مركي دعان النبي صلى الله عليه وسلم مالين كيسو وحو دحبرتمها سمين جري قيلولشو راحة القيلولة باليرادا إنه برقن كساح هذا حوجها إن الجذود سدو سي ومحل يرى اللي وحي صوب بالله بتسراد فجر هبين كنا قيبة بدن بوتاجنا مالنتي أنت هذا كلام لنا وصي هرسنتهاي وحوجها يرى إن الجذود الشاء أيو سمين جري وحونا قيلولشدا أما إن الجذود سيداسي هردداسي وحي ديع جرتي وقت برقن كيا gurigiisa markuu ku soo laabto waxa ugu horeeya uu sameeyo wuxuu ahaan jiray inuu isagoo cadayanaya uu soo galo reerkiisana uu salaamo kadibna salaada duxada salaada barqinka salaatul awaabiin ayuu tukan jiray oo 4 ragco ama 6 ragco ama 8 intaba waa soo aroortay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu tukaday waxa dhici jirtay raashin in loo keeno uu guriga uu ka helo oo markaa wax ka cuno hadduusan hore subaxii waxba u cunin ama mararka qaarkood in raashinka loo keeno isagoo waliba sooman markaasuu afuri jiray oo Caaisha radiyallahu anha waxay tilmaamaysaa maalin maalimaha kamid ayaa waxay leedahay yaa rasuulallah waxaana loo soo hadiyay hadiyad ama dariskeena ayaa wax noo keenay waxaanan ku qariyay waxoogaha baan kugu tala galay oo ku reebay nabiga wuxuu sallallahu alayhi muxuu yahay waxa aad ii reebtay oo aad ii qarisay waxay tiri waa xaysadu waxa la yiraahdaa waa tacaam laga sameeyay caanaha garoorta ah iyo maxaa la yiraahdaa subaga iyo timir lisku shiiday oo lisku khalday oo si fiican lisugu walaaqay ilaa hadda waa la isticmaalaa carabta iyo soo cidii tagtay ba garanaysa markaas wuxuu ku yiri keen bal xaysadaasi way la timid nabi sallallahu alayhi wasallam wuu cunay wuxuuna ku yiri qad kuntu asbahtu saa'iman waxaan waa baristay anigoo sooman laakiin wuu afuray wahada min caadatihi nabi sallallahu alayhi wasallam suu farxad qalbiga u galiyo xaasaskiisu isagoo sooman xataa wuu afuri jiro raashinku la wadaagi jiray bal qofka muslimka ahi hadii waliima loogu yeero isagoo oo waliba soon sunnaha sooman waxaa sunnaa inuu afuro si walaalkiisa qalbigiisa uu farxad u galiyo wahakada nabi sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida wuxuu u soo galay xaaskiisii Juwayriya iyadoo ku tukanaysa meeshii ay ku tukatay allana xusaysa musallaheedii ay alle ku xusaysay subaxii horena uu u soo galay iyadoo xaaladda ku sugan saasuuna uga tagay markii uu barqankii soo laabtay wuxuu ku yiri miyaadan ka zuulin inaad xaaladda ku sugan tahay oo aan kaaga tagay sidii aan kaaga tagay miyaad wali ku jirtaa markaasay tiri sidii baan ku jiraa wuxuu ku yiri nabi sallallahu alayhi wasallam gadaashaa waxaan ku qowlay oo aan dhahay 4 kalmadood ayaan iri ama 3 kalmadood haddii loo miisaamo wixii maantoo dhan aad ku hadlaysay oo ilaahay aad ku xusaysay waxaa ka xoog badan 3 kalmadood ama 4 kalmadood oo gadaasha aan iri maxay yihiin 4 kalmadood subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله عيبو دن كهفن ما هذا دن اسغي اسغناتي خلقيغا او ابوري ترديسا ترى لا انت وكراد نقضو اي الهي ما هاد اسغناتي عيبو دن او كهفن yahay عرشيgiisa wasankiisa iyo culayskiisa in la eg ay ma hadna usugnaatay ceybo dhan oo ka hufan yahay kalimaadka alle waxa weeye midaadiisa in la eg ay ilaahi subhanahu wa ta'ala ma had usugnaatay ceebna oo ka hufan yahay waqtigaasi waxa laga yaabaa inay ahayd waqtiga uu reerkiisa waqtiga la qaadan jiray inay ahayd uu la khalwoon jiray maxaa yeelay waqtiyadaasi mararka qaarkood waxa dhici jirtay xaasaska iyo dumarka qaarkood oo muslimiinta inay u yimaadaan ay soo booqdaan iyagoo markaasi wax weydiinaya su'aalo weydiinaya waliba su'aalo gaar la ah dumarka gaar la ah waxa kamid ahaa dumarkii ansaareed ayaa waa maxay su'aalahaas u badnaa Caaisha radiyallahu anha waxay tilmaamaysaa haweeneydii reer ansaareed kamida ayaa nabiga u timid iyadoo markaa wax ka weydiinayso xaydka wax ka weydiinayso nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam midiin waxay qaadanaysaa biyo iyo gob sidriga wayna ku tahaara qaadanaysaa tahaara qaadashaduna way wanaajinaysaa
kadibna biyihii madaxa isaga shubaysaa wayna daliigaysaa oo daliigid xoogan yacni si fiican bay biyaha jirka u gelinaysaa oo jirka u daliigaysaa ilaa uu gaaro biyaha tinta uu cabo kadibna biyo ayay ku shubaysaa uma tasubu calayha almaa kadibna wuxuu yidhi rasul slam waxay qaadanaysaa cad suuf ah ayay qaadanaysaa oo cadar iyo la mariyey kadibna way ku tahaaro qaadanaysaa haweenaydii waxay tidhi sidee bay ugu tahaaro qaadanaysaa nebiga sal slam wuxuu ku yidhi subxaana allah ilaahay baa ceeb ka hufan ee ku tahaaro qaado wuuna xishooday waana ka jeestay caaisha radi allahu canha baa waxay leedahay markaan arkay nebiga inuu xishooday ayaan waxaan ku idhi intaan xaggayga u soo jiiday haweenaydii tatabacii biha ahara addami raadkii dhiigga raacraac oo waa maxay saas u tahaaro qaado isagoo nebigana imaqlaya mana inkirin sidoo kale ummu sulaym baa u timid isagoo nebiga sal slam la jooga xaaskiisa ummi salama radi allahu canha waxay ku tihi yaa rasuula allah ka waran haweenayda habeenkii haddii ay riyooto waa maxay ka waran miyay qabaysanaysaa ummu salama waxay tihi taribat yadaak yacni dhul darso oo gacantaada ha ciidowdo waa nooc yaraa waxaa weeye carabtu ay habaar ahaan ama canaan ay u isticmaali jirtay yaa ummu sulaymay fadaxti الnisaa cinda rasuuli lah sal slama dumarkii baad fadeexaysay nebiga agtiisa ummu sulaym waxay tidhi ina allaha laa yastaxyii min alxaq alla xaqa kama xishoodo annaguna haddaanan nebiga weydiinin waxa naga ishkaal gala ama naga qarsooma yaan weydiinaynaa ma indhala'aan baan ku jiraynaa nebiga sal ly slam wuxuu ku yidhi ummi salama isagoo u gargaaraya ummu sulaymna waa maxay ummu sulaym u gargaaraya dheh ayuu wuxuu ku yidhi ummu sulaym buu u gargaarayay wuxuu ku yidhi bal anta taribat yadaak adiga ummu salamoy gacantaada waa maxay ciidowday ina khayrakunna waxaa idinkugu khayr badan midda arrinka diinteeda weydiinayso nacam yaa umma sulaym haa ummu sulayme qabays baa ku waajibaya hadday biyo isku aragto markaasay ummu salama waxay tihi yaa rasuula allah oo haweenaydu markaa iyaduna ma biyay leedahay nebiga wuxuu ku yidhi sal ly slam haa sidee buu markaa u shabbahayaa ilmuhu shabbaha xagguu ka imaanayaa iyagu waxay la dhasheen ama walaal la yihiin ragga ayay walaal la yihiin wahaakada dumarkii ansaareed saasay ahaayeen caaisha waxay ku tilmaamtay nicma nisaa'u alansaar waxaa dumar u nicmo leh dumarkii ansaar maxaa yeelay xishoodka uma diidin inay diinkooda ay fahmaan walihaada saxaabadu dumarkii saxaabiyaadku kamaysan xishoon jirin nebiga sal slama wixii ka ishkaal gala way u imaan jireen weliba wakhtiyada gurigihiisa uu joogo oo laga yaabo inay tahay wakhtiga barqanka ama duxada oo maa maxay qayluushadiisa uu soo aadi jiray waxaa dhici jirtay mararka qaarkood dadka saxaabada khawaastiisa dadka gaarka ahee nebiga sal slam aadka ugu sii dhadhow inay xiliyadaasoo kale ay u yimaadaan waxaa tusin kara xadiiskii nebiga sal slama caaisha ay warinaysay isagoo oo gurigiisa hurda guriga caaisha isagoo nebiga sal slam hurda oo weliba gogosha la hurda mara yarna waa maxay uu maxaa la yidhaahdaa uu xiran yahay bawdyadiisana uu fayday ayaa waxaa soo galay abubakar radi allahu canhum wuu idan qaatay waana loo idmay isagoo isla xaaladaas ahoo bawdyada ay u faydan yihiin markaasuu waa maxay wakhti buu la qaatay ilaa dantiisii uu dhammaystirtay kadibna waa iska tegey kadibna cumar baa yimid wuu idan qaatay waa laga furay isagoo nebiga xaaladiisii ku sugan haddana markuu dantiisi bogtay wuxuu dantii u ka lahaa uu iska tegey cuثmaan baa yimid radi allahu canhu cuثmaan mar alle markuu loo idmay nebiga waa fadhiistay maryihiisana waa sintay oo si fiican buu maryihiisa isugu hagaajistay kadib buu soo galay oo la sheekaystay haddana markuu xaajadiisa iyo dantiisa gutay wuu iska gadoomay oo waa tegey caaisha waxay leedahay markii ay abubakar iyo cumar iyo cuثmaanba ay tageen baa waxaan ku idhi yaa rasuul allah sal slam abubakar baa kuu soo galay gogasha maadan ka kicin umaadan diyaar garoobin waana tegey cumar baa yimid dan iyo yeel kamaadan gelin cuثmaan markuu soo galay limaada aad isku beddeshay oo aad fadhiga uga kacday oo dharkaaga aad isugu duwatay nebiga wuxuu yidhi sal slam miyaanan ka xishoonaynin nin ay malaa'igtuba ka xishoonayso cuثmaan waa nin xishood badan waxaanan ka cabsaday hadduu soo galo anoo xaaladdaa ku sugan inuu dantii uu lahaa uu gaari kari waayo nebiga sal slam saxaabadiisa waa kala yaqaanay kan dabcigiisa uu adag yahay iyo kan maxaa layaha xaalado mucayana la qabsan karo iyo kan maxaa layaha xishoodka badan iyo kan maxaa layaha isha nugul intaba waa kala garanayay laakiin xishoodku innugeyl ma aha
وشرف إي أمان وي سيدا النبي صلى الله عليه وسلم أوتلمي الحياء لا يأتي إلا بخير حشوتكو وناقمو يوحكى لمي ماذو سواء قف دمر هذا قف رقا هذا يرئي وين هذا حشوتكو وأمان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تلمامي سمرك وقت وريركي سلاقا ذنيو وحو أهانجري ميتك دادك ugu dabacsan ugu karaamada badan ugu sharafta badan mid qosla oo dhoola cadeeya ayuu ahaa bashar bini aadanka kamida ayuu ahaa waxay tilmaamaysay reerka ayuu waa maxay waxay u baahan yihiin la qaban jiray kabihiisu tolan jiray dharkiisu tolan jiray xoolihiisu soo maalan jiray isagaana shaqadiisa iyo naftiisa u khidmeyn jiray guriga wixii hawlo yaalana wax waa ka qaban jiray oo waa saacidi jiray ma annahu dumarku ay xaaladda iyo shaqooyinka ay leeyihiin laakiin dabci wanaagiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu saacido ayaa dhaqan u ahayd. وهكذا ولا ليال النبي صلى الله عليه وسلم وحوها دتك متك أو خير بدن وحديث بنا كويري دتك وحا أو خير بدن خير الناس لأهله متك أهل كيسة أو خير بدن وحد عضي وقت يداسي والنبي صلى الله عليه وسلم جوري كيسة كو قادن جري مالين مالمها كميدة أيا وامحي جوري عائشة إسقو الجو السوداء أيا سوق الشيء مركزا رسولك صلى الله عليه وسلم دحضو ضأيو كلا فدي ودح فديستي أيجيبو كلا دح قال لبضودي markaasuu waa maxay lugihiisana dhinacyadu ka kala saaray kadibna caaisha ayaa waxay samaysay xariirtu waa nooc daqiiqa ka mid ah kadibna sawda ayay waxay ku tiri cun way diiday waxay tiri dan igama hayso yani ma ishtihaynayo ma jeclaysanayo mana raba inaan cuno waxay tiri cun ama wale wajigan kaaga malaasaya way diiday gacantay waa maxay ku qaadatay bahashii daqiiqda ahayd ama shurbadde ama soordhe iyo wixii la mid ah markaasi wajiga uga malaastay uga masaxday nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qoslay lugtii saarnayd maxaa la yiraahdaa sawda dhabteedana uu ka qaaday si ay uga magdhawato si ay uga gudato si ay uga aarsato kadibna iyadina sidoo kale ayay soo darsatay wajiga ayuu waa maxay ay uga masaxday caaisha rasuulkana sallallahu alayhi wasallam uu ku qoslayo waxa ay sameeyeen ay waa maxay sida ay waxa maxay u cayaarayaan ay waqti u qaadanayaan wahakada wala layaal saasay uu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam guriyihiisa marka uu joogo iyo waqtiga uu qayluushada uu qaadanayo iyo waqtiga uu reerihiisa iyo qoysaskiisa uu la joogo sida ay ahaayeen iyagoo sida ku jiro ayay waxay maqleen Umar radiyallahu anhu masaajidka ka hadlaya oo oranaya ya Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Umar oo dhahay nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam istaaga oo wajiyadiina ordaha iska soo dhaqa Umar umaleyn maya illa mid soo galay uu egyahay Umar baa yimid markaasuu yiri assalaamu alayka ayuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh nabigu salaamay nabigana waa ka radiyay oo wuxuu yiri ma soo gala adkhul nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam udkhul soo gal oo soo gal وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قيلولة شديسو ظهرك أي أدوان جرتي ظهرك كهر بي أهيد قريهيسا أما قريها زوجات كيسا أيونا قيلولة شدا يهرددا وكو قادن جري من قلي جرين قري أن قريها حاسس كيسا أهين مركا لقرب سليم رضي الله عنها محايلي محارم تيسا أي كمد أهيد أو النبي صلى الله عليه وسلم كتل ما مركي لويديي قريها سليم محاد أقشا وحيري إني أرحمها قتل أخوها معي وأن أنحها ولالكيد أيام معي قال الدلي أو دقال أيو كشهيدي ولذلك قلبي قيد أيان دوريا محارم تيسا أينا كمد أحيد صلوات ربي وسلامه عليه وهكذا مالمها كمده قوغشي سليم ومحارم تيسا كمد أيو كسيحدي إساقو قيلو لشانية markaasa loo yimid سليم lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam gurigaagii buu hurdaa way timid oo waxay aragtay inuu dhididkiina harag uu ku hurday uu ku maxaa la yiraahdaa ku dhibcay markaas waxay bilowday inay dhididkaas gurato oo intay mara saarto ay mujuujiso oo meel ku urursato qaarurad ama dhalayar markaasuu nabiga soo kacay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Sulaym maxaad suubinaysaa waxay ku tiri يا رسول الله عرقك وديدت كاجي وحن دونيا إن عذر كيجا كل حضره أو إن إسكو عذريو وحن دونيا بركة ديدت كاسي إن هلاء المهن اللي كبر كوبان نبي حكي صلى الله عليه وسلم أصبتي واد أصيبتي كدبنا وأدعي دعاء وقرح بدن
أي أقدعي وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قيلوا لشديس وحكو قادن جري قريه زوجات كيسة أما محارمتيسة وهكذا قفكنا سن شاد وأهل مال كيسي وحوغها يرهردداسي وهرد نافع على تلماما إلا إن قلن كي هرانا النشاط باد قبصتي سي قلن كدنبنا آذن أذو دالن آذن وحبا قبصنين إن أذو حوغها إن قدود ستو وحي أفي عنتهي قلن كدنبا إنو قفكو كفائلي السوء سفر فرعوني له ووحو قبصده هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيدتك وأخذ بصلاة الظهر كدب إلهي بونا وامحي وحيدي أماني آدنا أمهديي وحو مذيهي ألا أيونا كمهديي كو أماني كدب وحيري أنت كدب يا ضضو فإني أستعمل الرجل منكم على العمل أنيقو قف بين شقاليسين وشقاء درسانيا وشقوينك ألا مسؤول إيقاد الشقاء كمدان أسي ديبايا أو لا شقاء أرض وصوقبو markaasuu ii imaan isagoo odhanaya intanna adinka iskale intanna ana liisoo hadiyeeyey fadhiisto guriga hooyadii iyo aabihii markaas inuu arko bal in wax loo soo hadiyeynayo afalaa jalasa fii beyti abiihi wa ummi xataa ta'tiihi hadiyatu guriga hooyadii ama aabihii muu iska fadhiisto bal in wax dadka ay u soo hadiyeeyaan in kale bal ha arke taa macnaheedu waa maxay halkaas xadiiska waxay ka qaateen aimadu hadaaya alcummaali quluul dadka shaqaalaha ay mas-uuliyiinta ah hadaayaadka loo soo hadiyeeyey waa booliwa waa xaaraan wey maxaa yeelay qofkaa wuxuu wax kugu soo hadiyeynayo inuu mansabkaaga kugu soo dhowaado in berri ka maalin aad u waasitayso inaad waxaa weeye hawl u qabato